قصة مانتا وقصة شرف يعني قفك قصة عند حديد الود لي ريزن كالود لي وحويان سلو إلاليو شرف إريجا لا رخو يعني شرف أديدان لهرو مري dad waxaa jira ku fikirayo ama se naf u goyn kara ayagoo dhahayo ayagoo ama dhahaya ama ka baqayo bulshadu maxay naga sheegayaan arrinkan hadii loo gaado dadka maxayna dhahayaan arrinkan haduu soo ifbaxo waa ceeboobayna waxyaabaha la mid ah maanta waxaan joognaa isla Mareykanka joognaa meeshii wanaagsaneed ee fiicneed ee lagu nimceystay ee lagu barakoobay wadugtii soo maxalka soo kor diyaaradda bilo ku taayna waxa weeyaan baa lagu yiri waxaad jebisay amarkii maxkamadda muxuu ahaa idin soo sheegay in goob ay taagan tahay ama meel ay ka shaqeey war anywhere ay taagan tahay inuu 10 mayl ka fogaado hadduu u soo dhawaado maxkamad xataa lama geenayo waa la qabanaa xabsiga la geenaa 6 biloodana lagu xukumay oo maxkamad waxay ku tiri hadii meel ay taagan tahay lagu arko ama ayda ku soo sheegto ama dad kale ku soo sheegaan maxkamad xataa ma maraysid automatic 6 months ay xabsi galaysaa soo ma xasuusatida lagu yiri xukunkeegu u dhahaa in lagu xiri doono 6 bilood hadii aad ka agdhawaateed ilmahan iyo xaaskaagii hore hadaba xukunkii haddu kugu fulaa lagu yiri soo bax xabsiga toos loogi without maxkamad because maxkamadda already way sii xukuntay okay laamiga amniga markaa waxay ku laabteen gurigii ru'a markay ku laabteen Xamse hadaad xasuusataan interviewgii waa kii dhahay markaan gurigeeda tageen wada casheynay kadib waxaan cabnay shiishad gurigeedii markii la tagay lagu laabtay waa markii labaad ee lagu laabanay markay tageen lama amniga waxay arkeen horta cuntadii la kariyay uu dhahay cuntadii ay karisay baa wada cuntaynay aniga ayada waxay lama amniga ogaadeen in cuntada la taaban waa la kariyay laakiin lama cunin lama taabanin waa beenta koowaad ee Xamse ku soo baxday beenta labaad ee Xamse ku soo baxaysa waxa weeyaan shiishadan lama bashidinba maalinkaas okay markii lama amnigu dabcan waxyaab dambi baariyaashu waa dad jaamacado u gala waxyaabahan oo kale inay fasiraan shiishada waxay u saleysteen marka hashtag ku jiro ugu yaraan 4 ilaa 5 maalmood ka hor ayaa la shiday ma ahin hashtag mar dhow la shiday aragya okay mar labaad la soo qabtay Xamse xalku yiri dhageyso anagu waxaan soo ogaanay in adiga iyo gabadhan la weysan yahay ee Ru'a xariir jecel idinka dhaxay xiri no xariir jecel nagama dhaxin anaga gabadhan waa gabar maaragtay naag la furay waay exactly naag la furay waay anigana wiil baan ahay weligay yani ma guursanin mujtamaceena as Ciraaqi ahaan hadii la fiiriyana waxaad sheegaysan aniga sumcad daray ii tahay aniga gabar baa jirta aan is jecelahay xiriir sheeko iyo xiriir jecel laga dhaxeeyo mar dhowna waaba guursan rabaa please waxaas aniga suuqaha ii gelinina yani suuq daraha suuq xumaha ii guridana camal waaya okay waxa la mariyay marka baashi jihaaskii beenta maasatan ayaa la mariyay jihaaskii beenta hadaan dad qof cusub maybe in case uu daawanay guys qaybta commentiga ugu fasira jihaaskii beenta markii la mariyay uu ku guuleystay wali wax daliil kuma hayno waa iska sii daynay lama amniga marka ninkii Fahad oo gabadhan ex-keeda maadaama la xiray telefonkiisii ayay soo qaadeen waxayna raadiyeen maalmihii ugu dambeysay qofkay wada xiriiri jireen number bay ka soo dhex saareen numberkaasna waa numberka waxa iska leh nin magaciisa la yiraahdo kale sawirkiisa oo jeedin Aamir ayaa la yiraahdaa Aamirkii waa la wacay interview baa sagana loogu wacay markii loo wacay maaragtay lagu yiri adiga iyo Fahad waxaad kulanteen 16 Oktoobar waa maalinkii gabadha la weysan yahay wali anagu 16 iyo korantadu nooga maqan tahay wuxuu yiri yes waa kulanay asaa'i waxay ani asagana dad Ciraaq isku soo yaqaan wadankeena isku soo naqaan asxaabaan nahnay ii wacay waa iska kaftanay waa sheekaysanay sigaara wada cabnay biri kadib waa kala hoyanay waa kala hoyanay okay wuxuu ku sheegay wuxuu kala hadlay miyaa jirto
wuxuu yiri may waxba igala muu hadal waxbana igala muu soo sheekaysanay ninkan marka caamirkan hadda gadaal sheekada kaga soo biirayo wadanka Mareykanka wuu imid oo asagana UN baa keentay laakiin wali sharcigii weynaa citizenka ma uusan qaadanin yani ma fahanteen dambi baarihi marka wuu hanjabay wuxuu ku yiri dhageyso haddii hadda anaga wax daliil kugu ma hayno oo iska kaa sii daynayna laakiin haddii ay kugu soo baxdo inaad been noo sheegtay waa ku tarxiilaynaa caamir asagana sida Fahad oo kale xaaskiisa ilmihiisa ay wadanka la soo galay UN baana keentay oo wali sharcigii weynaa ma qaadan halka ninkan kale Fahad uu sharciga weyn uu sugay already uu dalbaday already shuruudihii waa buuxiyay laakiin waxa u dhimnaa waraaqada la yiraahdo naturalizationka dadka qurba jooga fahmay ayaa u dhinayd so one step ama hal talaaba uga dhinayd inuu citizen noqdo Fahad wiilka la xiray oo gabadha qabi jiray la weysay kan kale laakiin wali sharciga yaraab wadanka ku jooga waxa lagu yiri maadaama sharci yar wali aad haysatid haddii ay soo baxdo inaad been sheegtay beentaasi waxaan u xisaabsanaynaa inaad wadanka Mareykanka aad ka gashay dambi waana ku tarxiilaynaa xaaskaaga ilmahaagana kuma raacayaan marka lagu tarxiilayo wuxuu yiri okay haddaad waxay u soo heshaan waxa rabtaan iga sameeyo waxa lagu yiri okay maalinkaas halkee tagtay markaad asaga kala dhaqaaqdeen kadib halkee tagtay wuxuu yiri marka ani asaga sigaarka wada camna cabaar iska sheekaysana waa kala tagnay wili ana waxaan aaday store-ka la yiraahdo Walmart okay baa lagu yiri waa la iska sii daay maadaama wali waxna aanan ku haynin laami amniga waad ogtihiin waxay aadeen Walmart-ga si ay u ogaadaan ninkan inuu maalinkaas Walmart uu aaday in kale CCTV-yada ama kameradaha qaybta parking-ka iyo dukaamada dhexdeedii markay baareen waxay ogaadeen inuu caamir gaarigiisu maalinkaas Walmart-ga uu imid laakiin mid baa noo dheer Walmart-ga marka uu imid qof baa la socday waxaana la socday Fahad asagii Fahad wada socday gaariga parking-ka shiteen way imaadeen store-kay soo galeen waxayna gateen majarafad baasha oo lagu qodo qabriyada ama godadka anu majarafada waqan af Soomaali maadaama fara badan yahay noo faa'iido waxaad lahjadaada aad ku taqaanid ilaa af Soomaali waa wadanay laakiin lahjadan kala leenay soma almuhim majarafadii ay soo gateen majarafadii markay soo gateen way soo baxeen caamir marka guriga Fahad ayuu ku dajiyay Fahad gurigiisu ku dajiyay asagana uu iska sii baxay wala soo qabtay markale caamir waxa lagu yiri maxaad noogu sheegi weyday dukaanka Walmart marka tageysay inaad wada socoteen Fahad wuxuu yiri walaalayaal soo dhawaada anigu qaliimo fara badan baa galay dhowrkii sano wadankan aan joogay taasina waxay ii sababtay buu yiri inaan daawooyin fara badan aan qaato okay daawooyinkaasna waxay ii sababtay buu yiri inaan ilooshiyo fara badan ee igu dhacdo yani waxyaabo badan maskaxdeedu aysan xasuusanin so anigu waxba ma sameeyeen walaalay iska kiidaay camal okay سائدين سو شيء فهد واحرين هاي عامر كوالي سكسي داي قضية دي وحين نقطي قضية باردة لح بلادودن أي قضية دي وح عصب إيو وح كسو زيادة اللواي ننكي فهد ها وحو كجرا لحداس بلاد حبسيغا reason kaloo xiran waa ogtahay waanu ognahay 1 year ma waay marka waxa lagu xukumay hadii uu amarka maxkamadda jabay inuu 6 bilood ilaa iyo 1 year uu xirnaanayo sorry inuu 1 year xirnaanayo 6 bilood baan laga joogaa since gabadhan la waay taariikhdu markay ahayd 2 April 2009 2000 iyo iyo sorry marka qadiyadan waxay markii laga joogo 2 April 2020 6 month kadib baa waxa la soo wacay 911 waxaana soo wacday qof dumar waxay tiri waxa rabaa inaan information idinka siiyo gabadh la weysan yahay oo nolol iyo geeri mid ay u dhaxayso midna la ogeyn magaceedu waxa la yiraahdaa bay tiri Ru'a laakiin last name-keeda ma aqaani aniga okay maxaad ku ogtahay bay ku yiraahdeen laami amniga waxay tiri saaxiibkay ama boyfriend-kayga oo xabsi ku jira iyo gabadhaas ninkii qabi jiray ayaa
isku meel ku xiran yani isku qol ku xiran ninkay marka gabadhaas qabi jiray wuxuu ninkayga u sheegay ama uu u qirtay wax walba uu gabadhaas uu ku sameeyay so aniga hadda marib inaa waxaas oo dhan idiin sheego boyfriendkayga hebel baa la dhahaa xabsigaas sectionkaas ku jira orda taga soo wareysta wiilkii isla secondkii wiilaamihii amriga dhaqaaqay ninkii ay sheegtay gabadhu sawirkiisa dabcan aad u jeedin bay soo qabteen qolba waa xabsiga dhan lagala soo tagay stationka keensadeen qolba loo diyaariyay kaamarada iyo microphone-adu xidhan qolkii la keensaday waxa lagu yiri warkana si fahad ma waxaad isla xirintiin ha okay waxa hadaba ni soo wacday saaxiibada girlfriend-taada waxayna noo sheegtay ninkaas iyo gabadhii uu qabi jiray inaa sheekooyinkooga inaad information ka haysid wuxuu yiri ha waa ka haya oo fahad asaga ayaaba aniga wax walba ii sheegay oo ila wadaagay hay dadka sanadada igu xiran waxaad ognahay dadkii igu xirnaa intaasoo sano 4 sano already media ku jirna waxaanu ognahay daawada in qadiyadan sidaan oo kale ay dhacdo dadku markay wax geystaan dhibaato geystaan qof ay dilaan inay bilowga dambi baarayaasha ku adkeeyaan hadhow tolana dadka isla xiran yihiin ay u sheekeeyaan so wariyaaha dambi galo ama dambiilo hadaaba laba goor wax sheegaysid maad bilowga hore dambi baarayaasha intaad qiratid dhahdeed xukun yar isiiya laba goor baad sheegso afu ku xunxunahay almuhim ninkii wuxuu yiri sidaan wuxuu dhaceen wada dabcan ninkan iigu sheegay anuu ma hubo haye maxaa dhacay 16 bisha ninkan xaaskiisii hore markay shaqada ka soo baxday wuu daba socday guriga ayay gashay asagana parking-ka ayuu iska galay marka ninkani wuxuu maqlay xamxam ama xan yar ayuu soo maqlay maadaama carabta magaaladaas degan ay yihiin dad iswada yaqaana is xiriiriya isku wada xiran soo hadii wax yar qof uu ku soo siyaado waa wuxuu community-geenu waxa weeyaan buu yiri ninkan waa community xan jecel oo war badan Allah iblaahin in bashay la sheekaysata iblaahi waa la furay iblaahi ninkeeda istagaale waxyaabaas camal dadka namiimiinta iyo u badan yihiin buu yiri community-geenu marka ninka waxa soo gaadhay xan yar oo ah extiisa inay jacayl kala dhaxeeyo wiil ayada ka yarda aha ay isla shaqeeyaan soo taas waxay keentay buu inuu daba socdo المهم باركينغ soo galay bidix soo parking iskaga jira ayaa wuxuu arkay wiilkii extiisa lagu xamanayay ayaa imiday markuu imiday gurigii ayuu u galay extiisa apartmentkeedii buu garaacay ayada ka furtay uu galay okay naag la furay oo nin ajnabi ka ah u imaanayo okay hadii day ma aragtay anaga dhankeena maadaama dad diin ahaan isku diintan anaga aysan muslim waa xaraam waa ceeb waa waxde qadiyad sharaf ah waay المهم markii ninkii gurigii uu galay cabaar adee 30 minutes ilaa 40 minutes buu meelahaas warwareegsanayay kadib wuxuu go'aamiyay Fahad ya exkeedii in uu guriga galo kadib ninkani wuxuu watay furo fake ah copy sorry photocopy ayuu watay photocopy ayuu watay wiiri uu soo socday markii aday muddo lagu jiro gurigii albaabkii buu iska furay biiri ayar guriga uu soo gal marka ninkan wuxuu rabaa labadan qof waxay sameeyay bal marka lagu leeyahay hawshaada ihin baa soo saaro kale ayar buu u soo galay wiiri markuu soo galay uu meelahaas fiirfiiriyay baa wuxuu arkay wiiri qolkii jiifka okay oo albaabka u furan yahay albaabka ma xirnayn babyga yarna sariirtiisa ayuu ku jiray oo uu hurday markuu soo socday uu saas u tatalaabsanayo ayaa wuxuu arkay wiiri XTC iyo wiilkan yar oo shaydan saddexii arno si kala waxidin fahansiin dad waaweyn aad ay fahmaysiin wuu naxay wiiri laakiin isla markiiba telefonkiisa ayuu soo qaaday video ayuu ka duubay wiiri uu soo baxay car parking-kii ku soo laabtay cabaar markuu joogay almost 2 saacadood ku dhawaad uu parking-kii ku jiro sugay ninkan inuu ka soo baxo guriga ayuu arkay wiiri ninkii oo already back side-ka ka baxay oo albaabka gate-kii laga baxay uu ka arkay inuu baxay ninkan already markaas ayuu gaarigiisa ka soo degay buu yiri markuu gaarigiisa ka soo degay uu qaaday guri parking gaarigiisa ka soo degay
asanseerkii soo koray wuxuu imid gurigii naagtii extiisa ahayd. markaas wuxuu rabay buu yidhi boorsadii haddaa xasuutaan hordhaca video idinkugu soo sheegay oo dharka ku jiray wuxuu rabay inuu kaxaysto. okay markaas ayuu haddana ismaanacay, isla asagii la ismaanacay. wuxuu yidhi okay boorsadan ma rabi ee adiga keliya ku rabaa soo bax, gaarigayga soo kor. baybigii iyo ayadii ayuu gaarigiisa ku ritay, gurigiisa ayuu la aaday. gurigiisa markuu la aadayna waa ceejiyey, doqday naftuu dhaafiyey. markuu nafta dhaafiyey wuxuu iska sugay buu yidhi ilaa oo the midnight-ka noqonayso around 4 am 17 bisha 4 am markay ahayd subaxnimo ayuu wax ku duuduubay. naagtii uu soo qaaday, gaariga gadaal ayuu saartay, uu soo dhaqaaqay. magaaladaas marka waxaa la sheegayaa inay leedahay meelo biyo mareen fara badan. kayn uu tilmaamay ninkani ayuu la tegay, waa kii majarafadna sooba gato gaariga ay u saarneed haddaa xasuutaan. uu soo aasay, uu iska soo laabtay. ilmihii yaraaba laga yaaba daawad ilaa hadda inaa isweydiinsa ilmihii hodana ilaa hooyadii waata dhimatay, ninkiina xabsi ku jiray. ilmihii aaway. ilmihii markuu naagtii soo aasuu soo laabtayba walaashii oo magaalada la deganayd ayuu u geystay. ku yidhi dee hooyadii way ka tagtay, sababana noqonayso nolosheeda inta ka dhiman, anigana ma ogiday nin ragaan ahay, waana shaqeeya, mana korin kara ilmo ee kuwaaga ha ku dhex jiraano. marka saasuu igu yidhi. okay laamihi amniga ninkan marka u sheekaynaya waxay ku yidhahdeen ma noo tilmaami kartaa meesha exactly uu ninkani ku aasay. wuxuu yidhi horta ninkan inuu sheekadan ila wadaagaba waxa keentay meeday weydiiseen, haye maxaa waaye. wuxuu yidhi maadaama seasonkii winterka uu soo galayo, wuxuu igu yidhi roob badan baa da-a. okay roobabkaas da-ayaabaa wuxuu ka baqay maadaama qabrigii meeshuu ku aasay gabadhani aysan ahayn meel si qoto dheer loo qodin, oo de intuu yaro qoday uu ku riday dado xilli uu naxsan yahay. qofkan waa dareemi kartaane ay tahay. wuxuu ka baqay in roobkan da-aya meeshan maadaama meel webi mareen ee tahay adi meydkaas in la arko. marka wuxuu igu qalqaalinayay buu yidhi waxaan ku siinay almost waxaan ku siinaa $10,000. waxaad noo raadisaa qof banaanka jooga oo meydkaas intuu meeshaas ka soo saaro qabri ka qoto dheer kanaan ku aasay, yacni dahabayo si loo helin. anigana wanyarkayga wax yaraaba iiga dhiman 2 bilood waan baxayaa. so intaanan bixin sheekadan ii kala tuur ayuu igu yidhi. girlfriendtaydan kala tashaday buu yidhi waxaan isiri $10,000 kaaga ma daraysa iska qaada. ayadina waabata iiga kii soo hormartay ii soo sheegtay. waa maasantahay baa lagu yidhi, ninkii abaalmarintaadana waad leedahay, iska baxaday. ninkii xabsigiisii baa lagu celiyey. saaxiibkeen Fahad ninkii markii la celiyay asagana horey loo soo qaatay stationkii lagu soo celiyay interviewgii. dambi baarihii kayskan bilowgiiba hayay ayaa wuxuu ku yidhi soo dhawareeya Fahado, anaga runta kuu sheegaynay, extaad waxaad ku samaysoo dhan waan ognahay, inaad dishi waa ognahay, inaad aastay waan ognahay, wax walba waa la soconaa. so adiga ma qiranaysaa oo yacni dee ma noo sheegaysa mise anaga scenario-geenaan qaadanaa. wuxuu yidhi waa run 16 bishii waan u tegay, waxayna iga ogolaatay inaan isku soo laabano. anaa waxaan ku yidhi dee ilmihiina aan korsano, dhulkaan isku dhigay, aan isku soo laabanaan ku yidhi hayabay igu tiri. ayadii canugiiba waan soo kaxeeyay buu yidhi, gaarigaygaan soo kornay, gurigaygii baanu imanay. markaan gurigaygii imanay ilmihii aan seexsanay buu yidhi, aniga ayadii dee nin iyo naagtiisa yaa arano dadkan labada qof haddana muslim bay ahayn. wuxuu yidhi waa soo ceshtay, rajactu yaanba dhahayba. soo faaraxa maxaa waaye, faarax intee noo wada, rajactoodu uma baahna markhaati ilan ciddadii naagta waa ka baxday, say doontaba ha noqota, anaga waxba nagama gelintaasi. gaaladu ugu sheekaynayla, gaalo markuu u sheekayn wuxuu raba uu sheegi. wuxuu yidhi rajactu yaan dhahay, aniga naagtaydii waanu jimcaysanay, waanu barakaysanay, waan seexanay. midnight-kii baan waxaa maqlay buu yidhi in jikada noise ama cod yar ayaan ka maqlay. maadaama ayadana guriga aan kuuga agtaydiina aan ka waayo waa soo kacay. jikadii markaan fiiriyay bay mindi igula soo oraday, way idili rabtay. intaysan idilin ana ayada dilay, waana aasay. dabcan dambi baarayaashu scenario-gaas kama aysan gedmin. almuhim sheekadan aakhirkii waxaa soo faragashatay FBI-da. FBI-da markay soo faragashatay waxay ka caawinaysay marka FBI-du dambi baarayaasha in meydka gabadhaani lasoo helo. 48 saacadood kadib FBI-da way soo heshay meydkii meesha, maadaama meydka meesha uu ku aasay ninkani asagaba uu sheegay Fahadkan
meeshii loo tilmaamay waa laga soo qaaday gabadhan maadaama almost 8 months ku dhawaad ay aasneed lama garan karo exactly wixii ay u dhimatay maciijis baa lagu dilay mindi baa la geliyay because baarigii la baari lahaaba dee ma jiro meesha ma yaalo say doontaa waxaa noqotay 2018 January ba ninka maxkamadiisa 2021 January maxkamadiisa bilaabatay waana la maxkamadii waxaana lagu xukumay 25 sano oo xabsiya laakiin waxa u dheereed maadaama saa idin soo sheegay ninkani uusan weli passportkii u qaadanin oo weynaa oo American citizen ka ahay oo one stepkii ay uga dhinayna aan idin soo sheegay waxaa lagu yiri 25 sano kadib markaad xabsiga ka soo baxday adeer gacaliye anagu kuma dhalinay waa ku tarxiilayna wadankaagii ba u laabanaysaa qadiideen maanta inta ayuu ku egtay waxaan rajeynayaa inaad enjoy garaysaan videogan xaqiisa siiya inta ka kulmeen videogan video la wada xidhan kaga tagaya fi amaan illah